magacayga waa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar gudoomiyaha isbitaalada Dalmar ee takhasusiga tacliimiga ah gudoomiyaha hay'adda Al-Noor Foundation gudoomiyaha macadka cilmi baarista iyo horumarinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay Soordi farxad weyn ayay tahay inaan la wadaago kana soo qayb galo xafladda bandhigga buugga Unshakable Will ama doonista aan la loodin karin ee uu qoray aqoonyahan Yaxya Cabdi Siyaad oo ah nin muddo dheer aan aqoon u leeyahay. Yaxya wuxuu ku dhashay cudur aragga saameeya oo araggiisa daciifiyey 1990kii asaga oo markaa 7 sano jira ayaa nasiib wanaag anigoo la shaqayn jiray ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed waxaan deeq waxbarasho ka helnay macadka Al-Noor ee ku yaalla waddanka Bahrayn caasimadiisa meel u dhow Manama oo loogu talagalay ilmaha aragga naafada ka ah wadamada Carbeed in tababar loogu sameeyo. halkaas ayaa markaa anigu waxaan ahaa dhakhtarkii baarista ku sameeyey caafimaadkiisa kadibna u fududeeyey inuu aado macadkaas asaga iyo 8 caruur oo kale oo Soomaaliyeed oo Ilaahay waagaas noo suurageliyay in macadkaas geeyno ahaan ardayda ugu horreeyay oo aragala oo loo bilaabo waxbaris iyo tababar u gaar dadka aragala ka nasiib wanaag halkaas ayuu tagay waxbarashada ayuu bilaabay sida la socotiin dadka aragala waxay leeyihiin qaab gaar wax loo baro oo gacanta far loo sameeyay oo gacanta lagu aqriyo laguna qoro braille la yiraahdo kadibna waxbarashooyinka caadiga ayuu soo dhigtay ilaa dugsiga sare ayuu ka baxay macadka Al-Noor ee waddanka Bahrayn xilliga dagaaladii sokeeye ayaa dhacay aniguna markaa waxaan joogay waddanka Ingiriiska xiriir ayaan la lahaa laakiin ilmaha waxay Ilaahay suurageliyay inaan u fududeeyo Ingiriiska waddanka Ingiriiska asagii dhalinyarada kala qayb ka mid ah halkaas ay waxbarashadiisa ka sii watay heer jaamacadeed ilaa uu ka gaaray shahaadada labaad ama masterka uuna shaqo galay marka buugga taariikhdiisa ayuu ka sheekeynayaa iyo horumarka uu gaaray maanta waa nin aqoon-yahan isla markaana ku takhasusay qaybta maamulka iyo maareynta shaqaalaha ama human resource management la yiraahdo sidoo kale waa nin qoraa ah tababarada fidiya oo heer caalami ah muddo ka soo shaqeeyay waddanka Ingiriiska iyo waddanka Imaaraadka Carabta haddana u soo wareegay Soomaaliya farxad weyn ayay tahay aniga oo bilowga hore wax ka ogaa maanta inaan arko horumarkiisa asaga iyo dhalinyarada kale bulshada Soomaaliyeedna waa inay ogaataa qofka haddii araggu ka tagay in maskaxdiisa caqligiisa ay joogto bulshadana wax ku soo kordhin kara haddii uu helo taageerada iyo tashiilaadka uu baahan yahay waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka bogaadiyo ugana hambaleeyo bangiga Sombank oo asaguna madashaan dhigay fursadaas u furay maxaan ku raadayay Yaxya inuu la wadaago taariikhdiisa iyo aqoontiisa bulshada Soomaaliyeed bulshadana laga wacyigeliyo in dadka naafada ama aragala ama dhagaala ay yihiin xubno ka mid ah bulshada una baahan yihiin taageero si ay u gaaraan heer ayagu wax qabsadaan ummadana ay wax ugu soo kordhiyaan kana qayb qaataan horumarka bulshada iyo dhaqaalaha waddankeena marka ayagana aad iyo aad ayaan u hambaleynayaa waana mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq. Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaad.